بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاستلا فيكتوريا سيمبر قاياش ميل باتشوكتين تشيك سدحات شعب الصوماليين لأن يرد الله معارضي قلو والبو waxay u muuqataa arrinkii jawaari in xoog lagu mariyaa la doonayaa madaxweyne farmaajo iyo kheyre abaabul baa ka socda muqdisho lacag baa la bixinayaa waxaan rabaa inaan usoo jawaabo qadadii maanta ka dhacday muqdisho ee kooxdii kale villa hargeysa guddigii guddoonka aqal hoosaadka go-aankii kasoo saareen sharciyadii inay dhimatay baarlamaanka waxaa maanta shiray lasoo abaabulay oo qado la siiyey ee saxan beriisa ku shaqeynayo niman isku sheegaya xildhibaanadii hore hadlayay ayaan rabaa jawaab inaan siiyo shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa siday ku yimaadeen xildhibaanada iyo baarlamaanka soomaaliya baarlamaankii ugu horeeyay soomaaliya waxaa soo dhisay nin tanzanian ah un-ka heestee la oran jiray muhiga ee hablaha meesha ku haysan jiray inan kenya uu maqaayad ugu furo safiya la dhaho jibriil maxamed sheekh cusmaan qabi jiray oo la garanayo addoonka mahiga hablihii soomaaliyeed oo idil wuu wada wasay wuu wada halleeyey waa laisku soo warayay ilaa shirkii turkiya ilaa meel walba sii gabre ragga maanta xildhibaano sheeganaya hadlaya xildhibaanada hore sheeganaya dastuur iyo sharci ka hadlayo horta ma aha rag xildhibaanoo la doortay xildhibaanada baarlamaanka ugu horeeyey waxaa lagu soo dhisay hangaar liis baa reeraha laga soo arooriyey shariif sakiin iyo dad kale soo arooriyeen kuwii elgaabta ku tuugsanayay waxaa la sameeyey macno xildhibaana baarlamaan baa la dhisay oo lagu soo dhisay hangaar taleefanada laga qaaday lagu xareeyey baarlamaankii hangaarka lagu soo dhisay xildhibaanadii lasoo dhisay baarlamaanka ugu horreeyey la suubiyey waan garanaynaa baarlamaankii ugu horreeyey kii labaad kii saddexaad kii shanaad kii sideedaad kii tobanaad iyo kulligii waxaa la sheegayo kii kale berigii lixdankana talyaaniga odayaal pro italyaana ah soo malmaluuqay oo xildhibaano ka dhigay weli ma aysan dhicin baarlamaan shacabka soomaali soo doortay xildhibaano soo doortay dad aftahana dad waxgarada dad ummadda wax u qabanay horta baarlamaanku meel iska dhig waa garbage baarlamaanku soomaaliyeed waa garbage sharcina ma laho dastuurna ma laho ilaa hadda dastuur ma laho baarlamaankii uu mahiga soo malmaluuqay wuxuu kaloo dhalay baarlamaan dadban xildhibaano dadban wuxuu dhalay madasha wuxuu dhalay dhibta maanta soomaaliya haysto maantuu ragga hadlayo ee sharciyadii guddoonka aqalka hoose uu soo saaray oo ah inay sharciyadda ka dhamaatay kii ku hadlayay jumcihii khamiis waa in laga bixiyaa jumcihii khamiis ma watirsano 10 beri waa 10 beri way dhan tahay sharciyadda jawaari lagu ridi lahaa meesha ma tahay farmaajo wuxuu raadinayaa xeer beri horaa inuu madaxweynaha baarlamaanka kala diri karo kaana waa la diiday oo mar horaa laga saaro la bedelay xeerkaa ma jiro waa null waa zero marka waxaa cad in la doonayo in jawaari xoog lagu rido sababtana waan kasoo hadlay jawaari waxaa loo ridayaa farmaajo ma doonayo one man vote inuu waddanka ka dhaco farmaajo ma doonayo xisbi mucaarad farmaajo wuxuu doonayaa baarlamaanka inuu gacanta ku qabsado sidii baarlamaankii siyaad berberigii xisbiga kacaanka la oran jiray baarlamaan uu siyaad ber asaga rag keensanaya rag dhiganayo baarlamaan hadlay aheen doorashadana sanduuq la dhigayo haa iyo maya siyaad barmartini maya iyaga dooran jiray marka waxaa weeyaan soomaaliya marxalad xun bay maraysaa waxaanu filaynay inay soomaaliya soo hagaagaysay noqonayso dowlad marka ani waxaani oran lahaa dadka soomaaliya ku wareegayo maanta alxamdulilah baarlamaano badan aa leedihiin madashu waa inay ka tashataa waxna ku darsan baarlamaanka soomaaliya haddii jawaari la ridinayo nin walba inuu aqoonsi raadso soomaaliya ay kala tagto lagu kala tago oo maanta kheyr kasoo socdo dowladda farmaajo ma jirto dowladda farmaajo waa dowladdii isku dayday inay xeef riddo waa dowladdii riday madaxweynihii hirshabeelle hore waa dowladdii mar walba madasha iyo wax walba dhibaateynaysay marka tribku soo maro dhulku soo maro daarood kasoo bilaabay wax walba kasoo diraa waa wax la dhoodhoobay waxaan nii sheegayaa waddanka baarlamaan ma jiro
dastuur ma jiro waa wada ognahay xeer ma jiro waa wada ognahay si kastaa raggan wax loogu sheegay waxay go-aansadeen inay waddanka boobaan waddanka qaribaan baarlamaanka kala diraan soomaaliya waxaa ugu horreysay baarlamaan yeelato waagii jawaari conscious weeyaan talent weeyaan nin xigmad le weeyaan professor weeyaan wuxuu u yimid inuu waddankaa dowlad iyo nidaam iyo dastuur iyo baarlamaan sameeyo intaa baa lagu haystaa jawaari waxaa loogu haystaa raggani ma doonayaan in one man vote dhaco 2020 raggani ma doonayaan xisbiyada mucaaradka raggani ma doonayaan inay dalka u shaqeeyaan dadka u shaqeeyaan nabad iyo nolol ay ka doorteen nabadana way haystaanoo waxaa weeyaan amisana isku ilaaliyaan qaraxna shacabkii waa la dhameynayaa noloshuna way haystaanoo maanta nin walba u dhirgo milyaaraad bay qaataanoo qof xisaabiya male hanti dhowr iyo wax male marka waxaan nii sheegayaa baarlamaankii uu mahiiga soo malmaluuqay iyo kii talyaaniga uu soo dhisay waxaa la doonayaa maanta mid kasii foolxun in la keeno iyadoo waddanka dhiig loo daadiyo la xoreeyo maxamed siyaad bare laga xoreeyo marka waxay u taallaa arrinka shacabka soomaaliyeed iyo nimanka hogaamiyeyaal isku sheegaya xisbiyada mucaaradka ah in shacabka waddada loo soo dejiyo in arrinkan laga hadlo in baarlamaanka la badbaadiyo in la diido in khayro la eriyo in farmaajo la eriyo uu waddanka banaanbaxyo shaarac usoo banaanbaxaa loo baahan yahay waagii laga dagaalamaya maaha meedyadayni way halaawdo raggii hadlayay hadda ka hadlayay qadada cunaya maanta ay qadeynayeen ee dhahayay waa inuu jawaari iscasilaa ee kuwa xildhibaano maaha wax doorte maaha kulligooda inuu branco distroncy waa dad qurun ah xaar ah wax iyo qiimo iyo damiir ay leeyihiin lahayn marka waxaan odhanaynaa mooshinkan waa kii lagu kala baxay ama soomaali xaq bay usoo noqonaysaa oo dastuurka ilaalinaysaa iyo sharciyadda baarlamaanka ilaalinaysaa ama soomaaliya waxay ku noqonaysaa waagii manifesto kale oo nin walba wuxuu rabuu sameynaya waddankaa waa waddan burbursan waddankaa waa waddan dhibaato ku jiro dowladda shaqooyinkeeda ma qabsan waajibkeeda ma qabsan marka waxaan odhanayaa baarlamaan ma ahane waxaa jiro wax ah burbur iyo baaba iyo qarannimo la diidan yahay hastala victoria sempre qaqaayaasha itixaad al orobiya ka soo hadashay qolo walbaa ka soo hadlay nin walba waxgaradaa ka soo hadlay guddiga xeer hoosaadkaa ka hadlay inay sharciyo jirin waxna jirin madaxweyne farmaajo intaa dhan wuu iska tirayaa waa beenlow khaa-in iyo beenlow kheyr lagama sugay kheyr laabana sidoo kale marka waxaan leeyahay baarlamaan ma jiro soomaaliya xildhibaano ma jiro raggaa nadiifka ah ee diidan maanta hor istaagay in lagu cayaaro sharciyadda unbaa jiro inta kale ma jiraan meesha ay qadiijo ka hadlayso dee maxaana loo sheegay meesha xildhibaan ahayd aamine eelaay dee maxaana loo sheegay meesha aan garanayno ragga xildhibaanada ah ee mooryaanta dee maxaana loo sheegay meesha aqalka sare uu dastuurka hagaajinayo in qaydiid oo mujrima dee maxaana loo sheegay meesha muuse suudi aqalka sare ku jiro dee maxaana loo sheegay hastala victoria sempre qaqaayaasha bad luck of education ma oran soomaali waxaa haysto bad luck of ignorance hypocrisy khaa-in mujrim mooryaan wax loo meesha ku jiro marka jawaari I feel sorry for jawaari laakiin ogaada hadduu jawaari tago sharciyad ma jirto hadduu jawaari tago baarlamaan ma jiro hadduu jawaari jiro qaran ma soo noqonayo hadduu jawaari tago dastuur lama dhisay they are not capable knowledge ma laho haddii maskaxdii ummadda la diidayo xikmaddii ummaddan wada garanayna jawaari wuxuu yahay iyo meeshu kasoo jeeday duntiisa meesha sharciyad ma jirto waa waddan uu shariif sakiin suuraba ka yeelayo waa waddan la maqlayo tuug shariif sakiina waa waddan la maqlayo farmaajo qaa'il beenlowa dadka been u sheegay shacabka waa waddan la maqlayo khayro ciyaal suuqa waa waddan ay golaha xildhibaanadiisii wasiirada wada ciyaal suuq yihiin ee moryaan yihiin hastala victoria sempre maca salaama